dad marka waxaa jiro san hore ugu soo sheekeynay dhalinyarada ama dadka caadiyan balwada iskale markuu afurabo biyihiisa uu cabo ama shaahi uu cabo horey sigaarka u kacay sigaarkaas dhibaato weyn qofka u keenaya diiniyan uma fiicno caafimaad ahaan uma fiicno sidoo kale waxaa jira dad markay ay afuraan jecel inay shaah cabaan maadooyinka shaaha maadada ku jirta caleenta ayada lafteeda dhibaato qofka u keentaa waxaa wanaagsan markuu wax cuno ka bacdi inuu shaahiisa cabo si hadhow dhib aysan ugu keenin hab dhaqanka ama hab socodka dheefshiidkiisa marka waxaa muhiim ah dhaqaatiirta badanaan way ka hadlaan xanuunada gaaska inta bisha Ramadaan lagu jiro inay u qaataan talooyinka sidii loogu talagalay waxaa dhacda marka qofka inuu dhaqaato ama dhageysto dhaqaatiir kala duwan dhaqtarkan waxaan u sheego dhaqtarka kale wax laakiin kulli dhaqaatiirta hal wax way ka wada hadlaan waxaasoo dhan waxay qosaysaa bukaanka hadba sidii ugu faa'iideysan lahayd ku xiran tahay marka waxaan kaloo dhihi lahayn Allah naga wada aqbalo bishan Ramadaan dhamaanteen intii laga aqbalay Allah naga wada dhigo intuu qofka isticmaal uu ku jiro bishan Ramadaan in uu si joogto u qaato daawooyinkii hore u qaadan jiray daawada gaaska haduu hore u qaadan jiray uu qaato uuna yareeyo isticmaalka waxyaabaha muqaadaraadka ama isticmaalka xanuun baabiyaasha uuna badiyo activation socodka dhaqdhaqaaq uuna badiyo dhaqdhaqaaqaas waxay ka qayb qaataa hab socodka cunadii caloosha gashay sababtoo cuntada markay caloosha gasho ilaa ay gadaal ay ka baxayso waxay u baahan tahay movement dhaqdhaqaaq markii muqaaga dhaqdhaqaaqan calooshan way ka qayb qaadanaysaa xiidmahaas laakiin haddii cunto la cuno hore lagu jiifto ayadana dhibaato ayay u keentaa isticmaalka sidoo kale ama yareysashada cabitaanka ayadana qofku waxay u keentaa dhibaatadaasna waxaa ka mid ah markuu qofku wax cuno hadduu waxba cabin calooshiisa wixii galay jirka dib wuxuu qaataa wixii biyo u baahnaa biyaas marka maalintii oo dhan maadaama uu sooman yahay uusan waxba cabaynin intii uu ku suxuurtay wuxuu afurkii ka dambeeyay uusan soo shaqeyn xiidmihii wuxuu ka qaadanayaa waliba xiidmaha weyn wuxuu dib uga qaadanayaa biyihii ku jiray biyaas marka ku jiro qofku waxay u keenaysaa markii cunto saxaradii malawadka tagto saxaro adag inay timaado oo qofku markuu saxaroodo hadhow dhib kale waxaan ka hadlayn waxaan ahayn hadana meesha ay ka yimaadaan marka wax yaraad isticmaashid waxaa kaa ilaahay idinkiisa kaa yareyn kara dhibaatooyin badan oo kugu imaan lahaa marka xilliga afurka ilaa ay suxuurta waa saacad yar iska kooban oo wax 12 saac ka yar 12 saac hadduu qofka ugu talagalo in uu dheefshiidkiisii ku ilaaliyo wax weyn buu u qaban karaa waxaa imaan kara marka dadka caadiyan qabo sonkorta iyo dhiig karka ama dadka qalitaanada lagu sameeyay hore qalitaan caloosha maray oo loogu sameeyay inkastoo wadankan ay ku yartahay sleeve gastritis dadka waxa la yiraahdo ama dadka aad u cayilan waxay ayagana si qaas ayagana ugu badan tahay inay aad u qaataan dooyinkan kaniinigan gaaska ama ambroxol lansoprazole ani anti acid waxyaabo loo isticmaalo anti acid kaas qofku wuxuu ka caawinayaa in uu yareeyo wax soo saarka ama habkii lagu burburin lahaa cuntada ee caloosha habkaas hadduu yaraado sidoo kale uu jirka ama xiidmihii wuxuu calooshii wuxuu hadday nabar meesha ka jirtay ama caabuq ay ka jiri loo ogolaanaya ama uu ka helaya Chinese acidka la yiraahdo awgeed in uu nabarkii meesha uu ku biskoodo marka dadka aad ku cayiran ayagu waxay u nugul yihiin in ay waxyaabahaas qaataan dadka drugska isticmaala alcoholismka dadka sigaarka cabo waxay ayagana sidoo kale u nugul yihiin in ay ciladaas ku timaado marka talada aan siinayna waxay tahay in ay yareeyaan inta bisha Ramadaan lagu jiro ama aysan qaadan ama ugu yaraan markay suxuuranayaan aysan isticmaalin waxyaabahaas si maalintii hore calooshooda wixii ku jiray molecularada caloosha cuntada markay caloosha wada tagaan waa la burburinayaa inaysan dib ugu imaanin laakiin taladaas yarto aad qaadatay ama ficilkaas yarko aad samaysay inuu Ilaahay kugu badbaadiyo soonkaagana 30 bari uusan waxba kaaga tagin adigana aad ku caafimaad qabtid dad badan oo kalena oo dhibaatadaas kugu hayaan kula deemi jirayna hadii aad uga faa'iideysid ama aad tusto amwaanada sirka aad u geysidna Ilaahay idinkiis laga yaabo in ayagana ka faa'iideystaan
insha allah waxaan rajayn doonaa ilaahay idinkiis in aan ka faa'iidaysano bishaan ramadaan ilaahayna na gaarsiiyo tayada kale insha allah wabillahi tawfiiq